ganacsigu waxay Soomaalidu tiraahdaa wuxuu ku siiyaa waxaan hooyada iyo aabbaha ku siin. Ganacsigu wuxuu leeyahay risqan xadidnayn oo halka shaqaalanimadu ay leedahay risq xadidan oo mushahar go'an ayaad mar walba ku shaqaynaysaa. laakiin markaad ganacsiga ku shaqaynayso ama ganacsi aad samayso waxaa ku soo gelaya ama ha yaraado ama ha badnaade ee waxaanad ogeyn inta uu noqon doono. taasi markaa waxay keenaysaa inaad u dadaasho inaanad fadhiisanin inaad mar walba maaragtay sacyi farad aad ku jirto mushaharka markaad qaadanayso inaad shaqo badan qabatay iyo inaad shaqo yar qabatay kuma xidhna marka laga reebo komishanada meelaha lagu bixiyo. taasina waxay keenaysaa qofkii inuu dadaal ordo socdo maaragtay asoona soo foodo. soo markaad ganacsi ku jirto Soomaalida waxay jirtay saaxiibadana waa la yareeyaa socodkana waa loo badiyaa. يعني وقت بدن oo aad asxaabta la qaadan jirtay waqti badan oo iska baashaari jirtay waqti badan oo aad maaragtay madaxya ama meel iska fariisan jirtay saaxiibadaas kala ayaad sii deeyaysaa oo aad gelinaysaa ganacsiga oo fikiraysa oo ordaysa oo soconaysa oo socdaalaysa marka